guddiga khubarada qaramada midoobay ee Soomaaliya oo soo saaray warbixintoodii sanadlaha ahayd ee 2019 ayaa qaybo ka mid ah waxa ay kaga hadleen arrimo ku saabsan Somaliland. wargeyska geeska Afrika ayaa waxa uu soo ururiyay qaybo ka mid ah waxyaabaha ay soo saareen guddiga qaramada midoobay ee UN Monitoring Group ay kaga hadleen Somaliland. shirkadda Ethiopia leedahay ee la yiraahdo Mental and Engineering Corporation ayaa ay u qortay kooxda khubarada ee qaramada midoobay inay hub ka iibisay Somaliland iyo qaybo ka mid ah maamul goboleedyada Soomaaliya. dhugmatiyada ay aragtay kooxdu ayaa kuwa muujinaya hub la kala iibsaday sanadihii u dhaxeeyay 2013 ilaa 2015. kooxdu waxa ay sheegtay in lacag ka badan 3 milyan la kala siistay hubkaasi. dhinaca Somaliland, kooxdu waxa ay soo bandhigtay waraaq uu qoray taliyihii hore ee ciidamada qaranka Somaliland, General Ismaaciil Shaqale, taasi oo ku taariikhaysan 28 Sebtembar 2014. waraaqdu waxa ay sheegtay inay Somaliland ka heshay hub qiimaheedu uu dhan yahay $698,600 shirkadaasi Etoobiyaanka. warbixintu waxa ay sheegtay sidoo kale in madaxda shirkadan Etoobiyaanka ay u aqoonsan tahay Somaliland iyo maamulka Puntland sidii dawladda madax bannaan oo kale. daawadayaal, sidoo kale halkani waxaan idinku soo gudbin doonaa waxyaabo kale oo ay Somaliland ka qoreen kooxdan UN Monitoring Group oo ku saabsan weerarro lagu qaadiyay Vatican-ka oo raadintiisu ay soo gashay Somaliland, saldhigga Imaaraadka ee Berbera, iyo eeda loo jeediyey wasaaradda beeraha ee Somaliland oo la sheegay in ay kaga khasaareen faragelin ay faragelisay hay'adda FAO 10,000 oo tan oo siid ah oo Somaliland loo qaybin lahaa. waxaa warkan la socodsiinaya anigoo Maxamed Taajira. tan iyo kulantii dambe, sidaas iyo nabadgelyo.